بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة su-aashan oo iska soo noqnoqota see caruur galbeedka loogu kori karayaa waa su-aal dhib badan mararka qaarkood waxaan isdhaha malaa waxay la mid tahay qof inta bad lagu rido haddana la yidhaha war hoy haqooyi hoy haqooyi baddana waan dhigayaa waa waxaad u adag mar haddii aan badda la daynaynin malaa waxa qura suurtagali waa laba mid un inaad balitaanka dabaasha barto inuu cabaar firig firiglayn karo iyo wuxuu fuuro inaad u keento laakiin haqooyintu waa adag tahay dhulkan saynu saakaba tilmaamaynay shubahaadkii wixii qofka diinta ka shakisiin lahaa way tiro badan yihin shahawaadkiina waa tiro badan yihin laakiin adiga ilmuhu waxaa ku kala gedisantihin adigu waxaa timi adigoo ugu yaraan waxa wax lagu qiimeeya ay kuu dhisan yihiin waxna xumo u yaqaana waxna samo u yaqaana xataa haddaad ku dhacdo waxaad rumaysantahay inaad xumo ku dhacday talaadgoa markaad halka timi zinada waxaad u taqaanay wax xun inay tahy xataa hadday kaa dhacdo waxaad islahay toobadkeen xumaad samaysay laakiin ilmaha halkan ku koray muxuu yaqaanaa ee nolosha ku nool ragyo dumar la isku dhex jiro ee wax walba saayi isagu ma haystaa wuxuu ku kala garto maxaa xaqa maxaa baatila miisaankaasi ma hayaa wuu dhashay wax yar baad guriga ku haysay waxaad geysay meesha la yidhaahdo kindergarden ama baanhaage ama meesha carruurta yaryar lagu hayo ayaad geysay meeshaa markuu joogana waxaa looga bilaabayaa heesihii dhaqankoodi iyo hiddaa iyo kiniisadaha iyo waxaasi dee saynu inaba islaamu ugu heesi jiraan carruurtaa loo heesaya heestaa laga soo bilaabo ilaa iyo intuu jaamacad ka baxayo wuxuu ku jirayaa waxaas marka su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan haddii aan madrasadu iskuolku kula afkaar ahayn ee afkaartaada ka gedisan uu dhigayo ilmihiina 8 saacadood uu joogayo tvgii iyo netkii iyo wixiina ay la mid yihiin suuqii iyo saaxiibadii iyo dadkii uu raaciyayna ay la mid yihiin isna uu ilmo yar yahay oo aanu korin oo maankiisu dhammaystirmin siduu ku badbaadayaa waa mid subxaana leh kaasi siduu u badbaadayaa waa mid aan fududayn intaa waxaa sii raacday haddana aabbiyo hooye is haysto haddana le carruur baanu korinaynaa ama aan sida loo korinayo aragti ka lahayn aan waxba isku waafaqsanayn odayga odhanaya warya waxaa jooji markuu baxaaba islaanta odhanaysa wuu yarya iska dah sameeye yacni isku aragti kama aha sida ay waxu korinayaan iyana waa isku khilaafsan yihin kuwaasi waaba kuwii wada joogaye in badanina waxaa laga yaaba in guryuhuba dumeen odayga iyo islaantuba guryuhu inay mufakak yihiin qaanuunku mid aduga kuu dhaqankaaga ilaalinaya ma aha valueska waddanku ma aha iskuolka valuega yaaliya waxa lagu dhigaya ma aha nolosha caynkaas iyo ilmaha intaad keentay aada haddana rabto inuu saxma oo wanaagsanaadaa wax fudud maaha intaa waxaa kaloo sii dheer baan odhan karaa al-umiya diiniya aabbahan iyo hooyadan ilmaha dhalayo iyaba diintooda ummi ka ah waa laga yaabaa inuu iskuol ka soo baxay ama jaamacad ka baxay laakiin dee diin ugama bixin
odayga reer miyigaa buu kala mid yahay diinta intuu ka garanayo malcaamadii intii loogu dhigay dugsiga berigii uu dhiganayay intii loogu dhigu buu ka dhigtay wax damba uu garanaya ma jiro idan aabbaha iyo hooyada meesha wax ku dhalaya in badan oo ka midina ummiya diiniya baa haysaa diin ahaan aqoon uma leh masale labaad oo kale ayana sii jirto oo dhibta sii badinaysa bini aadamku hadduu shaqo qabanayo hadduu bini aadamku rabo inuu shaqo qabto shaqada wuu bartaa barashadu maaha xataa theoretical oo qura in lagu sharxo saasaa la yeelo saasaa ma aha wuxuu bartaa waa lagu train gareeyaa shaqo aan training lagu siinin weligaa miyaa lagu diray waddankan aad joogto shaqo kastoo aad timaado usbuuca hore ama weega hore nin baad iska daba socotaa training baa lagu siinayaa baa lagu leeyahy waxay la mid tahay haddaynu darawalnimaan ku barayna inuu theoryga u dhigno calaamadda markaad aragto waa la istaagaa geerka saasaa loo bedelaa steerinka saasaa laga yeelaa darawal ma noqonayaa bay kula tahay hadhow gaadhi ma nidhaahna waar iska kaxeedda waa tii lagu dhigay maya wuxuu u baahan yahay in lagu train gareeyo lagu tadriibiyo fannu qiyaadati اlbashar bini aadam in la hogaamiyo la koriyaa waa fanni cilmiisana u baahan cilmiga ama iskuol ku dhigo ama coors ku qaado ama kan ku qaado ama can tajriba ku qaado innaga waxa laga yaaba waxaynu ka nimid dhul dadku aanu wax badan aqoon laakiin tajribay kala dhaxleen islaantana ayeydee guriga fadhida iyo islaantan kuwa eedee guriga jooga waa khabiiro tajriba bay soo heleen ay dad ku soo koriyeen ha soo kufkufaanbo ha soo kala dhaxlaane waa dad waxa kan ugu yaraan aqoon u leh kuwiina waynu ka nimi koors kalena maad qaadan adigoo aan markaa waxba ka ogeyn gaadhi baad leedahay gaadhaan kaxaynaya waa wadi karayaa baad taagan tahay xaadinada ijtimaacigana environmentkuna kuma saacidayo environmentkaad ku nooshayna waa midaan ku saacidaynin maxaynu yaallaa markaa ka ugu fududi de waan iska tagno waa ka ugu fudud ka ugu fududi war waa carruurta meel muslim joogo way muslim iskala noolaada suuqan aad arkaysaa waxbuu barayaa ugu yaraan qofka dhul muslima ku koray ugu yaraan su-aalaha tashuushka ah buu ka nabadgelaya cidina weydiinaynin kaagan yar aad meeshan u dirtay maalin kasta su-aalo cusub baa ku soo baxaya inanta yar waxaa la leeyahay madaxaaga maxaad u oday ma uskag baad ku qarinaysaa markaa garan mayso waxaanay hooyadeed ugu soo hagoogtay walidaalik sida ugu fudud ee male lagu nabadgeli karaa waa ambaqanadaasi ha iska cararo iyaynan dagaal gelin haddii taa laga maarmi waayo waa inaynu baranaa sidii aynu carruurteenna u badbaadin lahay inay naar uga badbaadin lahay arrin fudud maaha yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran baa ilaahay yidhi waa ardadow lafihiinna iyo ubadkiinaba naar ka badbaadiya war naarta baa ilaahay weliba inoo sheegay waquuduha annaasu waalxijaara dad iyo dhagax baa xaaba u ah baa la yidhi taa ubadkiina ka badbaadsada maxaa u horeeya si aan ubad u badbaadiyo nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin qofka ilaahay khayr la doono diintuu baraa diintuu fahamsiiyaa waxaan ku leeyahay kow callim nafsak alasaasiyaat الdiiniya min caqiidati waxalaali waxaraami wacibaadati bar marka koowaad adigu naftaada hooyadii iyo aabbaha ilmaha korsanaya asaasiyaadka diinta ee fardulcaynka qof walba ku ah ha bartaan ee caqiido leh ee xalaal iyo xaaraan leh ee dhowrsani leh ee cibaado leh baro aye berigaa yara anigu waxba maan soo dhigano waa kano berigaa yaraydan wax afjarmal soo dhigtay miyaa leedihin haddana waa ka wada towtowsiisaan soo maaha ugu yaraan inta hunguriga ee lagu xoogsado waa taqaanaa yani waa bini aadamku siduu waxaan u daneeya bay ku xidhantay inuu wax bartaa
waxbarashadu yeeraan iyo weynaan iyo waxaa ma kala leh waa ma doonayaa haddaan doonayo waa maran karaa weeyaan haddaan doonayo waa maran karaa weeyaan berigaan yaraan ugu diinta soomaalidu waxay ka fikirtaa carruurta qur-aanka loo dhigaa oo maxaad ka rabtaa ilmaha qur-aanka ugu dhigaysaa hadhow baan silay ha anfaco oo adiga weynba ku anfici waaye adu maxaad u baran weydi kan yare aada leedahay berigu gaadho ha barto ha anfaco adaa weyne maad baratid ha ku anfacee labada adigay hayd inaad barato kan wakti baabuu soo koraya tiro badan waxaan uga dan leeyahay koo wardiintiina barta haween iyo ragba guriga wuxuu u baahan yahay koowaad waa inaynu diin baranno waxa labaad ee gurigu u baahan yahay waxa weeyaan inaynu ku camal fallo diintu ay dhaqan inoo noqoto markaa ilmuhu wuu baranaya namuudaj tusaalu haystaa model waxaanay gaaladu yidhaahdaan role model buu haystaa haddaad adigu beriska marka lagu soo dhigo gacantun ku boobto ka yarnaa tidhahdaa abo bisinka u qabo bismillah dhe bismillah hadduu maalin walba kaa arkayo adigoo bismillah leh isaguna bismillah buu odhan lahaa hadduu kaa arkayo adigoo markaad dhamaysato alxamdu lilah leh isaguna alxamdu yacni noloshu waxay ku fiican tahay inaad si practicala u baratid maalan bahalladu kooda yar siday u tababaraan xayawaanku miyuu wada hadlaa xayawaanku ma wada hadlo inta badan saynu ka naqaano laakiin libaaxa yare akhirka libaaxun buu noqdaa eyga yare akhirka eygun buu noqdaa waayo tan dhashuu daba socdaayo ilaa uu isku filaada aanu ka tegaynin dabeetana si practical ay wax u baraysaa soomaalideennii hore nin baa baadiye ka imanaya markaasaa waxaa la leeyahy gaadhiga hala baro gaadhiga see loo baro ma iskuul baa la geeyaa gawaadhida lagu barto may iskuul farsamada lagu sameeyo gerashkaa ku dara baa la yidhaha gerash baa lagu daraa gerashka muxuu ka qabtaa kan makaaniga meesha baanada yidhaha number 10 ii dhib 10ka kee la yidhaahdaa buu leeyahy intuu baanada u keeno war waa taase keen maalinta hore maalmaha hore baanaduhu kala baranaya nambarada ku qoran hadhow kolba mid buu odhanayaa boolkaa ii furo boolashaasaa loo fura siduu geerashka u joogu makaani ku noqdaa makaaniyadeenii wax iskuul ka soo baxay miya aragtay way yaryiin nin intuu institute galay ama jaamacad galay isagoo wax aqoona soo baxay laakiin akhiiran farsamo yaqaanay haddana ahaayeen wixii kaa xumaado kuu samaynayay waxa lagu baray ariiqa practical more practical bay ahaayeen waxaan uga dan leeyahay qofka bini aadamkaa sabuurad qura wax looguma dhigo ee dhaqanka iyo namuudajka wax loogu dhigi karaa waxaad u baahan tahay ilmahan waxaad rabto inaad barto inaad adigu namuudaj ku noqoto adigu inaad role model oo tusaale inaad noqoto qodobka saddexaad ee aan tilmaamayo horena wax uga tilmaamay waxa weeyaan fanu lqiyaada aw fanu tarbiya mar haddaan gurigii ayeeyooyin iyo eedooyin iyo adeeriya awowyaale aanay kaaga dhaweynoo joogin oo adiga iyo gabadha isguursateen oo quri a meel cidlaa isla degi doontaan labadiinuba waa inaad barataan course rasmi oo ah sida ilmaha loo koriya ilmuhu muxuu u baahan yahay saa loo neers gareeyo markuu xanuunsado sida loo ilaaliyo saa wax walba barashaad uga baahan tahay wax walba barashaad uga baahan tahay haddiiba aan gaadhi lagugu aaminin ilaa lagu bara mooyaane ama kijada aanad geli karin wax kastoo xalaala haddii lagu keeno kijada ma farsamayn garanaysid laakiin haddii maalmo lagu tusiyo maxay cuno fiican maad ka soo tuuri karaysaa qof bini aadama maxaad u malaynaysaa markaa isaga maynalaamaynu ku wadnaa fanu tarbiya waa fani cilmiyadoo la barto waxaad u baahan tahay course yar inaad qaadato oo ku saabsiisan sida caruurta loo koriyo waddanadaynu joogno intaasi waa tusaalayaasha guud waxaan kaloo tilmaami lahaa kow waxa ugu horeeya ee aada u baahantahy waxa weeyaan mas-uuliyaadkaa inaynu dareenno ma dareensantay qof bini aadama mustaqbalkiisii inaad adigu gacanta ku hayso uu u baahan yahay mas-uuliyaddaasi baad ka soo baas mise waxaad dareensantahay ilmaha dashay inuu guriga joogo carruurtii baa guriga wareebalo misaa dashay 4 baa ordaya ma tiradaad ka adagtay mise wax kalead ku maqan tahay
mas-uuliyadda marka ugu horeysa qofku hadduu wax dareemo inuu mas-uul ka yahay wuxuu dareemaa waxaas mas-uuliyaddaa sidii uu qaadi lahaa wax kasta uu u baahdo inuu barto raadiyo ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara wuxuu nebi maxamed leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam in allaha saa'ilun kula raacin cama starcaah ilaahay qof walba wuu weydiin doonaa wixii uu mas-uul uga dhigay maxaa la weydiinayaa axafida am dayac miyuu ilaaliyey mise wuu dhumiyey xataa yus'ala arajulu can ahli beyti buu nebigu yidhi ilaa iyo ninka la weydiiyo reerkiisii xadiidkaa wada taqaanee nin badani ee dheeraana nebigu wuxuu leey kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyat qof waliba waxbaa la raaciyey aakhirana waa la weydiinaya wixii la raaciyey waxa ugu yar naftaadaa lagu raaciyo aakhire waa lagu weydiinaya haddaad islaan mas-uul ka tahayna iyadaa aakhire lagu weydiin hadday carruuri ku soo kordhayna reerka iyo carruurtaa lagu weydiin haddaad madaxweyneya boqor noqotayna ummadoo dhan baa lagu weydiin haddaad imaam masaajid noqotay inta masaajidka ugula tukanaysaa lagu weydiin ninba inunbuu mas-uul ka yahay haddaad madrase haysay madrasadaa lagu weydiin haddaad iskuul ahayd iskuulkaa lagu weydiin qof waliba mas-uuliyadda inta ka saaran ayaa la weydiinaya saas daraaddeed buu nebigu wuxuu yidhi fakullukum raacin wamas-uulun can raciyati dhammaantiin waxbaa laydin raaciyey aakhirana mas-uul baa kaa tihi xadiid kale wuxuu nebigu ku tilmaamayaa dembiba waxa kuugu filan kuwii aada quudinaysay inaad dayacdo kafaa bilmari iثman an yudayica man yaquud dembi waxa ugu filan qofka buu nebigu yidhi kuwii uu quudinayay inuu dayaco haweenkii iyo carruurtii iyo dadka aada biilka ka bixinaysay soomaaliya markaad joogtay ee waddanadeenna aynu joognay inta badan odaygu wuxuu mas-uul ka ahaa inuu xoolaha la cunayo keeno hooyaduna inta badan waxay mas-uul ka ahayd inay waxaa diyaariso oo guriga ay neers garayso oo qadadii iyo cunadii iyo wixii u samayso oo carruurta koristooda iyo inooga wakiilahaa macallinka qur-aanka dhiga iskuulka macallinka jooga odayadan suuqa iska jooga islaamahan iyo eedayaashan iyo adeerada tan magaalada kula jooga dad baa kula korinayey marka adigu waxaad xambaarsanayd oo qura inaad wixii la shaqaynayo la cunayo keentid halkan haddaad sidii u dhaqanto dee waad dayacmaysaa halkan waxaasoo dhami shaqadii ay hayeen aday kugu soo ururtay waxaa dad kugu xeernay oo dhami shaqadii ay hayeen nebiguna wuxuu leeyahy kafaa bilmar-i iثman an yudayic man yaquud dembi waxaa qofka ugu filan inuu dayaco oo dhumiyo ciddii uu quudinayey cidduu wax siinayey diin ahaan akhlaaq ahaan dhaqan ahaan tarbiya ahaan addunya aakhiraba inaanay dayacmin oo inagu maadaama ay maskaxdeenna ku weynayd wax la cuno inuu siiyo inta badan odayga soomaaliyeed hadduu guriga ku soo noqdo isagoon waxba u sidin wax la cuno soo waayey oo kuwii yararayo gaajaysanay ka agooyaan aada buu u warwaraa waayo wuxuu rumaysanyay shaqadiisii inuu gabay beerkiisiina halkan uu jiifo waxay cunaan uu sii kari waayo ka warran waxay cunaan haddaad siiso ay naarta laakiin kula socdaan waa inay kaaga warwar badnaataa cunnada waxaa ka warwar badan aakhirada ilmahaagu siduu u fakerayiyo wuxuu cunayiyo waxaa ka war badan waxaan oo dhan marka diyaacu ma aha mid uun maadiye mid macnawiyo tiro badanna wuu noqdaa qadiyadda labaad aan idiin tilmaamaya waxa weeyaan muraaqaba wa mutaabaca masaadir الtalaqi cinda alabnaa inaad ogaatid oo la socotid carruurtaadu xaggay wax ka qaadataa waxay akrinayaan xaggay ka keenaan muxuu yahay waxay akrinayaan carruurtaadu wax walba inay cunto miyaad ogashay amaya saga maa ana aaba kaas waa doofaare ha cunin kaas waa khamriya ha cabin kaas waa xaaraana iska daa kaas waa caynkaa cunadu sidee
sida aanay macquul u ahayn qofku wax walba inuu daaqo ayaanay macquul ahayn qofku wax walba inuu akhriyo. miyaad aragtay qof intuu wuxuu arkaba liqo kudaafadda calooshiisa ku rida waxaad odhanaysaa waa ruu dawaqsay ka wax walba akhriyaa la mid ah. waayo maskaxdu waxay taxliilisaa waxa lagu quudiyo. weligaaba maskax badnow haddaad qurun ku gurto iyana waa xumaanaysaa. caloosha waxaan islahayn markaad isugu geyso way daaca qurunta baad tidhahdaa soo maaha. maskaxduna waa daaca quruntaa. meel waliba way xumaataa wixeeda waxaan ahayn haddii lagu isticmaalo. marka ilmaha waa inaad ogaataa wuxuu cunayo qura maahe wuxuu akhriyey maxay yihiin. intaasoo saacadood buu iskuul joogaa, intaasoo saacadood buu halka joogaa, intaasoo saacadood baa afkaar aan qurux badnayn loo akrinaya. waxaan leeyahay waa inaynu garanaa waxa ubadkeenu akrinaya, daalacnaya, daawanaya, dhegaysanayo. waxaa dhacda markaynu ka warhayn kari weyna caruurteennu waxay akhrisanayso iyo waxay baranayso. ilmo guriga kuu fadhiyo aada moodo inuu fiican yahay unbaa mar qura ku yidhahda anigu waxaa ma rumaysin. gabadh yaroo xijaab shalayta iska sidatay unbaa berri ku odhanaysaa ilaahay ma rumaysni. wiilun gurigaagaba aan ka bixin oo aad islahayd wuu fiican yaho halkan buu joogay ayuu baa ku odhanaya salaad baad sheegaysaa salaadiba ma jirta naga tagoorada. waayo qashinkan buu intaa akrinayay dabeetana waxaan adigu aad ku qasbaysaba uu ka shakiyey. adiguna qoloftiisun baad eeganayso de kolley waa inaan soomaaliyadoo fiican baad lahaydo guriga kula jooga. idan waxaynu u baahannahay ilmaheennu koobcintiisa waxaa ka mid ah inaynu ogaano wuxuu akrinayo iyo wuxuu daawanayo iyo wuxuu samaynayo. ma taasoo qura maya waa inaynu badiilu samaynaa. waa inaynu siinaa masaadir saxa oo uu aqoon saxa kala kulmi karo. ilaahay kitaabkiisii, sunnadii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam, siiradii nebiga, waxaase ilmaha caqligiisay dhisayaan. sax iyo qaladkay u kala sheegayaan. valuega noloshay barayaan. adduunka muxuu u joogaabay barayaan. xaggee lagu socdaabay barayaan. aakhiro maxaa dambeeyay barayaan. adduunka xagguu ka yimi buu barayaa. idan masaadirta saxa ah oo khayr adduunye khayr aakhiraba ku jiro adduunkiisa iyo aakhiradiisuba ku hagaagayaan waa inaynu baranaa. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy inahu laysa shayء yuqaribkum ilى اljanna ilaa waqad amartukum bih. ma jiro buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam shay janno idin dhoweynaya ilaa iyo waan idin faray. walaysa shayء yuqaribkum ilى الnaar ilaa waqad nahaytukum canhu. wax naar idin dhoweynayaana ma jiran ilaa waan idinka reebo. yani nebi maxamed wuxuu tilmaamaya wixii khayrku ku jiro o dhanna inuu inoo sheegay, wixii sharku ku jiro o dhanna inuu inaga reebay. dee haddiiba ay saasi jirto maxaynu uga baran weyne? masaadirtii sax ahayd maxaynu uga baran weyne? weliba waa khatar qofka marka hore la tarbiyeynayo inuu waxyaabaha kale akhriya. qofku markuu xad gaadho isku filaanshiye cilmiyeeda mid gaal iyo mid muslimba uu akhri kari. laakiin marka aanu dhisnayn haddaad shubahaadka badsato adigoo aan dhisnayn dee waa dawakaysaa. walidalik baa nebigu calayh الsalaatu wasalaam maalin wuxuu arkay cumar bn اkhaaab oo xaashi towraad ka mida akhrisanaya. diintii nebi muuse ka tegey. diintii nebi muuse ka tegay waa la qalday, waxbaa lagu dardaray. isagoo xaashi taa ka mida akrinayuu nebigu arkay. dabeetana wuu cadhooday nebigu calayh الsalaatu wasalaam. aad buu uga cadhooday. markaasuu cumar bilaabay baa la yidhahdaa inu raditu biاllaahi raba wbilislaami diina wabimxamedin. nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku yihi markaa inahu wallahi low kaana muusa xaya bayna adhurikum maa xalla lahu ilaa an yatabicanii. ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yihi hadduu nebi muuse hadda joogi lahaa
waraaqda takii lagu soo dejiyey hadduu joogi lahaa uma banaanaateen wax kale inuu aniga iraaco mooyaane marka maxaad muuse tiisii ka akhriyay buu nebigu u tilmaamaya muusihii laftiisa ay ku soo degtay calayhi salaam hadduu hadda joogi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aniga mooyaane inuu cid kala raaco uma banaanaateen sidaa awgeed waxaynu leenahay qofka maaha inaynu idhaahno waxaa lama akriyo qure wuxuu akhriyay waa inaynu siinaa wixii anfacayay waa inaynu tusinaa wixii xaq iyo baatil ku kala garanaya waa inaynu tusinaa waa inaynu garanaa masaadirta sax ee wax laga qaata inay diinta tahay raabican waxaan tilmaamaynaa inaynu ilmaha u kala horeysiino saynu wax u barayno waayo ma sinna masaa'ilku masaa'ilka caqadiga way ka muhiimsan yihiin masaa'ilka akhlaaqiga ah shubahaadka in laga reebo caqiido saxa la siiya way ka muhiimsan tahay maxay masaa'ilka akhlaaqiga ama cibaadaadka ama kuwa kan marka siday wax u kala muhiimsan yihiin waa inaynu u siinaa si aynu jiil saxa usoo saari karno qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim oo ilaahay leeyahy xikmad baan siiye xikmaddan luqmaan la siiyey innaga in kooban baa laynooga sheegay inta laynooga sheegay waxa weeyaan ilmo uu dhalay waanadii iyo taladii uu siinayey waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunay laa tushrik biاllahi ina shirka la dulmun cadiim waxaad xustaayo ka warantaabaa ilaahay leeyahy luqmaan markuu inankiisii ku yidhi isagoo waaninaya luqmaan oo ilaahay xikmad ku tilmaamay oo ilmo waaninaya waanadii laynoo soo naqliyay yacni waxa weeyaan sidaan u dhaqma markaa saan baa xikmadii ku jirtaaye sidaataan u dhaqma luqmaan ilmihii wuxuu uga bilaabay inuu tawxiidka kala hadlo war hooy ya bunaya buu leeyay ilmahaygii yaraayow yabni oo la taskiiriyey weeyaan ya bunaya wiil yarahaygiiyow laa tushrik biاllaah ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna ha ku lamaanaynin cidna waxa la wadaajinin intaasoo qura kuma odhane sababtuu u cileeyey ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn ka waran hadday cidi wax ku siiso aad cid kale umahadnaqdo isagana dafirto nin waala baa la odhan laha ninkani soo maaha ilaaha ku abuuree ku khalqee waxaasoo nicmo aad haysata ku siiyey si aad igu mahadnaqdo ee caabud buu ku yidhi haddaad cibaadadiisa diidda ka waran nebi maxamed muxuu yidhi caaisha markay tidhi ilaahay adiga dembigaaga hor iyo kii dambeba wuu dhaafaye nebiga si uu cibaadaysanaya cagu barareen si uu taagnaa salaad markaasay tihi ilaahay adiga dembigaaga hor iyo kii dambeba wuu dhaafay maad iska fadhiisanta afalaa akuunu cabdan shakuura buu nebigu ku yidhi oo miyaanan cid mahadnaqda noqonayn buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam haddii aniga lay nimceeyey sow ilaahay inaan u mahadnaqa maaha cibaadadu waa mahadnaq aad ilaahay u mahadnaqayso ilaahay waxba u kordhin mayso luqmaan markaa ilmihiisii wuxuu u tilmaamay tawxiidku uga bilaabay inuu u saxo ilaahay inuu keli yahay cidna lala wadaajin karin wixii khalqigiisa ka mid ee wax lala wadaajiyaa inay dulmi tahay muxuu ugu xigsiiyey in alle subxaanaه wa tacaala wax kastoo aynu samayno uu arkayo muraaqabat اllah lagugu qorayo wax kasta ya bunaya inahaa in takun mihqaala xabaة min khardali fatakun fii sakraةi aw fi الsamaawaati aw ilmahaygiiyo wuu leeyay xabad khardala in leeg oo wax kastoo camal aad samaysaya hadday dhagax ku hoos jirtay hadday cerka jirtay iyo hadday dhulka jirtaba waa la keenaya maalinta qiyaame yأti biha allahu in allaha latiif khabiir aakhiru xasuusinaya wax kastoo aad samayso xisaab baa ka dambaysa taana ku talagal buu leeyay ilaahay waad is hortaagi doontaa ee waxaad ku jawaabi doonto tirada ku darso markuu tawxiidkaa ka soo baxay akhriya adduunba inuu ku wacdiyey yaa alle subxaanaه wa tacaala suu ugu cibaadaysan lahaa ayuu wuxuu tilmaamay arkaanta camaliga waxa ugu mudan yaa bunaya aqim الصalaa buu ugu xigsiiyey
yaa bunay aqim الصalaaة ilmahaygiiyow salaada oog oo tuko. ilmaha yari marna wuu qaangaadhay marna wuu ka yaryahay. inta uu qaangaadhka ka yaryay dembi loo qori maayo, laakiin maalintuu qaangaadhun wax lama fare waxaa la rabaa in training la sii siiyo si marka uu qaangaadho u yahay qof wax walba ula qabsaday oo aanay dhib ku ahayn. markaasaa waxaa layna faray xaddu tamyiiz markuu soo gaadho in la baro cibaadaadka. 7 jir markuu soo gaadho in la baro intaa ka soo horeysa in la baro inuu istijoon karo, inuu weysaysan karo, inuu caynkan oo ilmihii noqon karo ilmo tahaaro samayn kara, weyse samaysan kara. 7 jir ilaa iyo 10 jir waxaa la yidhi salaada bar, waxay ku ansaxayso, waxay ku qaldamayso, sida uu tukan lahaa caynkan. waa dhowr sannadood. dhowrkaas sannadood 5,000 oo salaadood baa la rabaa inuu soo tukado. 5,000 salaadoodba waa trainingkiisii. maalin waa laga yaabaa isagoo habeen inay ka noqotay oo iska seexday, maalin waa ilmo caruure inuu ilaabay baa tii duhuru ka tegey, maar kale inkani ku dhacday. waa training baa lagu wadaa. 10 jir markuu gaadho baa la yidhi arrintu way isbedelaysaa, waa in lagu maagaa. 10 jir markuu soo gaadho waa maxay? weli dembi loo qori maayo, laakiin waa in la tusiyaa baa meesha ka muuqata arrintu inay serious tahay oo serious u qaato. markaa wuxuu ka bilaabay yaa bunaya aqim الصalaaة, waxaa loogu xigsiiyey wأmur bاlmacruufi wanha can اlmunkari wاصbir calى ma asaabak ina dalika min casmi اlumuur. samaha qof sheega noqo oo dadka wanaagga u sheega. innaga carruurteennu caygda iyo maagista iyo diliska isu sheegtaa, kaa dil kaa caynkaa ku dhe. laakiin waa in ilmaha la baraa inuu wanaagga dadka u sheegi karo, xumahana reebi karo, wixii mas'aladaa ku soo gaadhana inuu u dul qaadan karo, sabirka barto. intaa kadib waxaa loogu xigsiiyey suu dadka ula dhaqmi lahaa. walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa. ha iswaaweyneynin, ha kibrin, ha noqonin. ilaahay ma jecla kula mukhtaalin fakuur, mid kastaoo isqaadqaado o isfaanfaaniya oo faan badan ilaahay ma jecla. waxaa loo tilmaamay waqsid fii mashyik waqdud min sawtik, socodkaaga dhexdhexayso. waxaa loo tilmaamay codkaaga hoos u dhig oo ha qaylinin. ina ankara laswaati la sawt اlxamiir. qisadaasi suuratu luqmaan ilaahay kaga waramayo waa luqmaan ilmihiisii waanadii uu siiyey, oo ay culammadu yidhaahdaan waa waano tilmaamaysa tarbiyadu waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahantay. qodobka shanaad aan idinku daraya wuxuu yaha soo koobabe الsuxba wاlmusaaxaba. ilmaha waxa ugu adag waxaa ka mid ah, waxay yidhaahdaan teenagerisku, ilmuhu markuu 10 jir dhowr iyo 10 jir soo gaadho, teenagerisku bay yidhaahdaan maalintii 8 saacadood wax ku dhadhow buu hadlaa bay yidhaahdaan. teenagersku waa hadal baday, intaa way isu sheekeynaya, waxba isku akrinaya. waxay yidhaahdaan laakiin less than 10% buu qof weyn baa la hadlaa. iyagaa wada hadlo oo isku dawaka, ama neta kala hadlaya, ama toosa ula hadlaya, ama iyagaa u hadla. taa macnaheedu waxa weeyaan qofka weynba wax yar baa dhex mara iyo qofka teenagerka. muxuu u baahan yahay? waxay yidhahdaan saaxiib buu u baahan yahay toosan. ilmahaaga markaa waa inayd u raadisaa bay yidhaahdaan inuu la saaxiibo cid khayrka ku saacidaysa. ciddan uu la sheekaysanaya, la isku sir qarsanaya, wax la isweydaarsanaya, hadday cid xun noqoto waa khatar. hadday cid xun noqoto ilmuhu khatar buu ku jira. hadday se cid san noqoto khayrkay isku darsanayaano waxay isu sheegaan. inta badan wuxuu noqonaya maxay? khayr buu noqonaya. dee bini aadamkuna sidiisaba saaxiib kama maarmo iyo cid uu wax la wadaa. ilaahay baa nebigiisii kule maxay? واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. waxaad la fadhiisataa la joogtaa baa ilaahay nebi maxamed ku yidhi kuwan ilaahay xusaa gelin horiyo gelin dambaba kuwa macooda noqo. idan adigaaga weyn ayaa u baahan
saaxiibkaagu inuu qof wanaagsan noqdo adigaaga weyn baa u baahan naadigaad fadhiisataa dad khayr qabaa inay fadhiyaan muslimka dee masaajidda iyo intii ka dhow ayaa naadi u fadhiistaa dadka ku tukaduu la saaxiib yahay dad khayrka kuu hogaaminaya waxaan u malaynayaa un darsiga in looga jeeday waxaan inay mas-uuliyad weyn tahay inaynu is ogeysiino laakiin darsigan idinku bari kari maayo see caruur loo korayaa waxaan rabay un inaan idin tilmaamo wuxuu automatic wax isaga socda maaha wax fududna maaha waan wanaagsan oo ilmahaygu u wanaagsanaanayaan maaha adigoo intaasoo dhan sameeyaa laga yaabaa inaad ku guul daraysato qur-aanku muxuu inooga warramayaa nebiyo aabbayaashood u taag waayey soo kama warramayo nebiyullaahi ibraahim oo aabihii wax ka dhaadhicin karana qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi nuuxoo inankiisii u taag waayey yaa bunayarka macna war calal aqal doonta nala soo fuul buu leeyo maya buurtaasaan korayaa buu ku yidhi war buuri maanta waxba kaa celin mayso maya halkaasaan u baxayaa buu go'aansaday adigoo dadaalay baad khasaari kartaa laakiin ka warran kaan dadaalkaba ku darin haddaanad adigu meesha dadaalba bilaabin sidee wax noqonayaan waxaan ku soo koobayaa markaasi noloshu waa challenge midhan noloshu caqabaadkeedu ma fududa war ninkii halkan wax ku dhalayow waxaad tijaabisaa waxaad dhalaysaa saad naar uga badbaadin lahayd وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين